dadka waalidiintooda dhinteen idinkana ka warqaba see looga warqabaya waalidka hadduu qabri uu galay haysnin aabbey waa dhintay khalaas waa iska iloway laa hadhiin u duceey waxaad samaysaa sadaqo u bixi xajka u sameey wax kasta oo ilaahay loogu dhowaanayo waalidka u duceey waalidka maanta adduunka markuu joogo adaa wax siinay anaa wax siinay dadkoo dhan waxbaa la siiyaa laakiin hadda markuu qabriga uu galo ilmihiisa mooye qof kale oo soo xasuusanayo ma laha asxaab waxa la dhahay ma jiraan marka waxaa lagaa rabaa waalidka markuu dhintay ka warqaba sadaqadaha loo bixiyo waxaan ku soo xirayaa xadiidkii saxiix nabiga calayhi salaatu wasalaam idaa maata ibna aadam inqataca camalu bani aadamka hadduu dhinto camalkiisa oo dhan wuu go'ayaa uu yidhi nabiga ilaa saddex ma go'ayan saddexda maxaa ka mid ah sadaqa jaariya oo masaajid iyo waxbaa samaysan intaad masaajidkaas lagu dukanayo ama dugsigaan ama oo waxya meelaha diinta lagu barto sadaqa jaariya la jaari way socotaa kan labaad cilmi yuntafacu bihi cilmi adin dad abartay oo lagu intifaacayo meesha aan u socdo intee waay oo waladun saalix yadcuu lahu ayu walad maaha walad fiican oo uu dhahay ilaahayow aabbee hooyada u naxariiso ilaahayow dad aa la rabaa marka waalidka laga warqabo markuu dhintayna waxaa waaye sadaqa u bixi markuu adduunka korkiisa uu joogin maxaa lagaa rabaa inaa adiga macnaha oo garabkiisa istaagtid oo xaaladiisa aad la socotid caas waalideyn ogow haddii adiga waalidkaaga bannaanka ku tuurtid adigana ogow ilmahaaga bannaankay kugu tuurayaan waa wax la ogaaday waaye tajribo la og yahay waaye intaad dhalinyaro tahay waalidkaa iskaga tag taleefon ha u dirin ha la soconin xaaladiisa ha la soconin shib iskaga dheh qofaa arkaysa lagu leeyahay waalidkiisa war kama hayo haddaa weydiisa waalidkaa goormaa kugu dambaysa wallaahi dhowr bilood lama hadlin ogow caruurtaadana inta adiga waalidkaaga aad u jirto ay ayana kuu soo joogsanayaan la soco marka kelimada intaan kusoo xilaya aada u mahadsantihiin jazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullah